Assalaamu calaykum. Macnaha dhabta ah ee guurku ma aha sida maanta uu yahay, mana ahaan jirin sida uu maanta yahay, umana fududaan jirin sida maanta uu u fudud yahay. Muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsan yahay raaxada guurka. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka, subscribe saar. Sidoo kale haddaad muuqaaladan oo kale ka heshid, like saar. Mahadsanid. Ereyga guur luqad ahaan waxaa loola jeedaa shay meel inta laga raray loona raray meel kale. Sidaas daraaddeed gabadha waxaa laga raraa guriga waalidkeed iyadoo loo raro guriga ninkii nikaaxday ama loo xalaaleeyey ama mehersaday, qof walba suu yaqaano. Okay, dhanka shareecada islaamka guurku wuxuu u qaybsamaa laba qodob oo isku lifaaqan. Labada qodob oo kala ah: 1. meherka. Gabadha waa in lagu meheriyaa nin geeya meeshana aysan oolin wax shuruud ah oo ka xidhaya. Qaybta labaad, aqal geynta. Gabadha waa in loo aqal geeyaa ama loo gurigeeyaa ninkii mehersaday ama xalaaleystay ama loo galbiyey, qof walba suu yaqaano. Dadkii hore ama awoowayaasheen ma guursan jirin ninku ilaa nin xoolo badan haysta mooyaane. Sidoo kale guurku wuxuu lahaa shuruudo aad u adag. Haddii aan fiirino dhanka zamankan aan noolnahay, labada qof way isguursadaan iyagoo markaa sabab ka dhiganaya waanu isjecelnahay. Ogow, waxaasi jeceyl maaha ee waa dareen. Qof walba dareen baa gubaya. Guurkaas ama gurigaas lagu dhisay dareenka, mid walba marka uu ka bogto midka kale dhanka dareenka, gurigaas ma aha guri sii dhisnaan doona ee wudumi. Sababtoo ah gurigaas markii la dhisayay lagama fikirin awlaadda iman doonta mustaqbalka ee waxaa laga fikiray waad iska fahmi kartaa. Halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 3 qodob oo muhiim ah in aad ka fikirtid inta aadan guursan ka hor. Haddaba 3 qodob maxay kala yihiin? Qodobka 1, inta aadan guursan wiilka ama gabadha waa inaad qiimeyn ku samaysaa ama aad tijaabisaa qofka dabeecadiisa, in uu yahay qofkan qof lala noolaan karo iyo in kale. Haddaba qodobka 2 aan u gudubno. Qodobka 2 waa in aad haysaa shaqo aad ku quudisid familkaaga. Dhalinta zamanka nool way guursanayaan iyagoona haynin wax shaqo ah. Wiilkii wuu guursanayaa, familkiisii ama hooyadii iyo aabihii ayaa u biilaya. Xaaskii wuu guursaday. Waxaas waa khalad. Inta aadan guursan ka hor shaqayso, ama haddaad guursatayba mar, shaqo inaad shaqaysid waa wax muhiim ah. Inaad familkaaga quudisid, aad u soo xamaalatid waa wax muhiim ah. Okay, aan u gudubno qodobka 3 oo ah qodobka ugu dambeeya barnaamijkan. Baro inta aadan guursan ka hor 3 shay. 3 shay haddaba maxay kala yihiin? Raaligelinta, mahadcelinta iyo ammaanta. Hadday xaaskaagu maanta kuu keento cunto, u mahadceli. Sidoo kale odaygaaga hadduu soo shaqeeyo, ammaan. Sidoo kale u mahadceli. Sidoo kale raaligelinta waa wax aad kaalin weyn uga qaata jiritaanka dhabta ah ee qoyska. Muuqaalkiina maanta intaanu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.